السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي قيمة بدن مانتي موقع عصب موقع كنا مانتا وحين كو قادننا 10 كنا كوي صدرات مايكروسوفت وورد waxaan kusoo guda jirnay barashada Microsoft Word 10 ka kore waxaan kusoo qaadanay wax la yiraahdo Word art ayaan kusoo qaadanay 10keena maanta hadduu abweyne raali ka noqdo waxaan ku qaadanaynaa wax la yiraahdo drop cap ayaan ku qaadanaynaa ugu horeyn waxaan soo kicinaynaa Microsoft Word keena ama documentigeena ayaan soo kicinaynaa oo gudaha ayaan usoo galaynaa documentiga marka aan gudaha usoo galno waxaan isweydiinaynaa muxuu yahay drop cap muxuu yahay okay drop cap isaguna waa nooc ka tirsan qoraalada balse waa maarta wuxuu uga duwan yahay drop capku isagana waa laba nooc ayuu leeyahay waxa loo yaqaano margin iyo in maarta introvert ayuu leeyahay okay drop capku waxa loola jeedaa tusaale paragraphkan waxa ugu horeeya ereygan video ayaa ugu horeeya documenti halkan waa uu ku egyahay drop capku marka waxa waaye ereygan v in la weyneeyo vidas markii la weyneeyo wuxuu suuragelinayaa marka paragraphkan oo dhan inuu qabsado paragraphkan oo dhan afkan hore inuu ka qabsado ayuu suuragelinayaa okay sidee loo sameeyaa practical ahaan ayaan ku arkaynaa sidee loo sameeyaa okay ugu horeyn falaarta waxaan dhiganaynaa meesha aan u baahanaa ereyga aan rabno inaan ku sameyno drop cap halka ayaan dhiganaynaa markii aan dhigano kadib waxaan tagaynaa halkan ay noogu qoran tahay insert markaan imaano ereygan word art hoostiisa fiiri meeshaan fiiri add drop cap mujida halkan ayaan furaynaa halka markaan furno fiiri marka meeshaan wuxuu leeyahay dropet iyo in margin dropet waxaa marka qoraalka qayb ka mid ah inuu sikiyo macnaha ereyga inuu gudaha u galo sida halkan ka muuqataba qaybta in margin waa maxay banaanka inuu ka taagnaado okay kana ku horeynayo fiiri muxuu sameeyay hadda waa dooranay ereyga video muxuu ka dhigay ereyga video fiiri muxuu qabadsiiyey dhammaan paragraphka oo dhan ayuu qabadsiiyey mujida paragraphka oo dhan ayuu vidas qabadsiiyey marka meelaha qaarkood ama warqadaha ama jaraa'idiyada ama joornaalada qaarkood waad ku aragtay erey saa u weyn oo paragraph dhan haysta nidaamkan ayaa loo sameeyaa wax loo yaqaano drop cap okay mar kale halkan aan imaano fiiri okay halkan aan ka tago walba halka paragraph aan dhexeysiiyo paragraphka saddexaad aan imaado ereyga waxaa ugu horeysa t oo themis ah waxaa ugu dambeeya themin oo ugu dambeysa okay ereygan t ayaan u baahanahay marka isagana inaan ku sameeyo drop cap weliba in margin okay halkan ayaan tagayaa drop capka kadibna waxaan leeyahay in margin labadan maxay ku kala duwan yihiin fiiri labadu waa same waa waxaa la weyneynayaa textiga ama qoraalka waa paragraphka ereyga ugu horeeya ayaa la weyneynayaa balse midna waxaa waaye qoraalka gudaha ayuu usoo galayaa oo dropet xoogaa yar waa maaragtay wuxuu ku aadan yahay midna waxaa waaye in margin banaanka ayuu ka jira ama hareerta ayuu ka jira qoraalku iska garab yaala macnaha iska garab yaala labadooda marka waa maaragtay waa same balse way kala xoogaa qurux badihiin markii la dhaho soo saarista qoraalka oo kale markii la dhaho midkan hore ayaa maaragtay ku fiican okay midkan fiiri waa maaragtay waxaa loo maleeyaa t meesha iska garab dhigay macnaha erey t oo inta la weyneeyo maaragtay farta bold laga dhigo la garab dhigo kala loo maleeyaa balse kan waa la dareemaya paragraphka qaabku uu haysto kanna sidoo kale isagana waa maaragtay waa qaybtiisa labaad oo ah in margin in hareerta laga dhigo drop capka okay sida uga qaada hadii aan rabo inaan ka qaado waa dooranayaa kadibna halkan ayaan imaanayaa no ayaan leeyahay ama nan ayaan leeyahay midkan isagana sidoo kale sidaas oo kale ayaan ugu qaadi karnaa okay halkan aan ku dayo marka safe halkan aan dhigo halkan drop cap halkan ay imaanaya kadibna drop cap waa kan nidaamka ayaan ka dhigaya okay waa kan drop cap nidaamkaas ayaa loo isticmaalaa ama loo adeegsadaa koley waxaan filayaa drop cap in aan fahanay sida looga qaado iyo sida loo adeegsada intaba iyo labada qaybood ee uu drop capku uu leeyahay in margin iyo dropet kaba labadaba okay casharkeena 11aad halka ayuu nooga egyahay sidaa ayuu nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar like nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faalooyinka